maanta waxaan inaan la wadaago buswadkaas sida aan u samaysanay quruxda badan leh oo maaragtay maasha Allah saas oo noogu soo baxay isla socod wanaagsan sidii aan u sameynay iyo wixii aan ka sameynay asxaabteyda sharafta leh soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. isku soo noqod wanaagsan asxaabteyda qaaliga waa idin salaamay. maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago buskud wax yar adii nus kiilo waa qasan kartaa, kiilo waa qasan kartaa, 2 kiilo waa qasan kartaa intii markaas karaankaaga. ani maanta wax badan inaan qastaan rabay laakiin waxaan jeclaystay maaragtay wax yar oo fudud inaan la wadaago walaalaha ay guryaha ku samaysan karaan, familada caruurta haysta maaragtay ay ka faa'iideysan karaan. soo dhawaada walaalahay. halkaan waxaan ku haystaa maxaa la dhahaa ukunta waa jooskeeda adaa iska leh. dadka qaar waxaan arkay buskudka hal xabo ku qasayo waa run, qof walba intii karaankiisa ku qasanayo hal xabo ku qasan kartaa, 2 xabo ku qasan kartaa, laakiin inta aad ku darsato natiijadeeda helaysaa. marka aan saa ku leeyahay yacni haddii ukunta aad ka baqiisho buskud waa kuu soo baxaa oo buskud maaragtay maalinta u horeysa fiican wuu kuu soo baxaa, laakiin buskudkii markii maaragtay saacado u yaallo cajiin uu noqonaa. ma fahantay? aniga buskudka cajiinka noqda ma jecli. buskudka waxaan rabaa bilowgiisa maalinta ugu horeysa uu duban yahay ilaa iyo hadduu maaragtay 5 bilood yaallaba inuu sidiisa iyo ahaado, inuu sidiisa uu qabo wax uu noqdo, uusan dhexda cajiin ka noqonin, uusan maaragtay dhufaag noqonin aan jecelahay. marka isla socod wanaagsan qof walba si uu samaystaa. aniga ukunta waxaan ugu roonaadaa buskudka markaan samaysana ukunta kama baqiilo, sababtoo ah buskud fiican oo aan ku farxan ku qanacsanahay ayaa iiga soo baxaya. oo hadduu ayaan ii yaalla xataa aan maaragtay ka shanlaynayno dhehayna leele buskudkan wuu daahay maxaa u cuni weysay. laakiin buskud fiican oo maaragtay maasha Allah burbur oo qurux badan oo sidiisa ahaana ilaa uu ka dhamaado ayaan jecelahay inuu ii ahaado. marka saas la ajligeed ukunta waan u badsaday. aniga 2 kiilo oo burka waxaan ku qastaa 15 xabo ukuna haddii ukunta yaryarta, haddii ukunta waaweyn tahayna 10 xabo ku darsada. marka maanta ukunta waaba yaryar tahay muujido. marka waxaan soo qaatay maxaa la dhahaa 3 xabo. halkaan waxaan isku soo darsaday subag iyo saliid, way dareemi kartiin oo maleena subag iyo saliid aan isku soo daray waa soo dhalaaliyay, weliba subaga u badnaa. saliid keligeeda daarto ku samaysan kartaa, qof walba sidii asaga maaragtay karaankiisa ayuu ku samaysanaa. laakiin muhiimadda waxaa waaye nus koob saliid ah iyo maaragtay nus koobka sokor ah. inaa ujeedin ayaan rajeynaya asxaabteyda waa nus koob sokor ah. halkaan waxaan ku haystaa baking powder iyo waxaan ku haystaa baking powder, qof boos u yaqaano waa baking powder soda waaye, way fiican tahay iyadana. halkaan waxaan ku haystaa vanillada sokorta ah, carfisada oo sokorta wata ku haystaa. burkina waa kaasa. burka marka wixii kugu xiran tahay qoyaanka adiga aa haysatid intii uu qaadanayo. ani hadda intaan waxaan u qorsheeyay nus kiilo, inuu nus kiiladii ka badan aan qaatana waa laga yaabaa, inaan ka yar qaatana waa laga yaabaa. marka markasta waxaa ku xakameynaya qoyaanka. halkaan waxaan ku haystaa caano, wax yar oo caanaan ku darsanaa, caanaha kama badinaayo waayo ma rabo inuu cajiin iga noqdo. marka isla socod wanaagsan asxaabteyda ukuntaa soo jabsaneynaa. iska kala leexinayaa si maaragtay weelka oo si fiican idinkugu muuqdo insha Allah. waxaan rajeynayaa inaad si fiican ugu jeedeen asxaabteyda. ukuntana in weel lagu jebiyaa iska fiican, laakiin ani ukunta inay cusub tahay waan ogahay, marka saas la ajligeedaan weelka ugu jabsanaya. laakiin markasta ukunta in weel la isaga soo jebiyo ku fiican tahay. saddex waxaan kaloo ku darsanaynaa sokorta iyo carfisada.
carfsada halkaas qaadaan ku darsanaa, kama badinayo waayo haddaa ka badbadiyo hadhow wax carabka ku dhegdhegayo noqonaya. wax yaroo hiilan ku darsanaa shiidan. heelka ugu roonaan kartaa heelka jooska ay ku xirantahay, laakiin carfsada hadii laga badiyo waxay ka dhadhamaysaa hadhow maxaa la dhahaa carabkay ku dhegdhegaa cusub marka la cunayo. markaasaan isku soo dhexgelinayaa, gacantaan ku qasanaya wax mashiina marwalba ku qaso. intaas bisa isku soo dhexgelinayaa, saliidda kabacdi ku daraa. waa inaan sokorta soo baabi'iyaa marka horeeto insha allah. saas xaabay maxaa la dhahaa waa isku soo baabi'iyey. subagii saliidiyaan ku darsanaya, waa haaf insha allah. marka 2 kiilo uu yahayna waa idinla wadaagi doonaa. maanta waxaan jeclaystay inaan maaragta horto intaas aynu tusiyo. waxaa kaloo ku darsanaya nus qaadada shaaxa nuskeed oo baking powder ah. sokorta intaas caanaha intaasaan ku darsaday. ma raba inuu cajiinaga noqdo, waa bakeeriga maaragta rubiciisa. waxaan ku darsanayaa qaadada nuskeed. intaasaan ku darsanaa, weliba nuska kasii yaray ilaa waxaan rabaa inaan bakeerkoona ku darsado. marka insha allah isla socod wanaagsan saasaa uga yareynaya. intaasaan ku darsaday oo ujeedeen. koobkaasaan ku cabiraneynaa. intii uu qaato waa isla arkeyna insha allah. isla socod wanaagsan. intaas markii maraa wuu cuslaanaya markasta oo wax ku daro. marka gacmahan ku qasanaya. koobkii kalena waan kaasa insha allah. markasta qoyaanka ku xukumaya adiga ilaa maaragtay buskudka xoogaa ka adkaanayo burka oo ku wadeynaa. inuu nuskiilo ka bataa laga yaabaa, inuu nuskiiladii kuu noqdana laga yaabaa. markasta qoyaanka ku xakameynaya. hadduu ujeedin koobkii labaad saasuu ku noqday. koobka saddexaad ma ku wada dareeno oo kala haafinayna insha allah.
taas way ku filan tahay. waa ujeedaan 2 koob iyo wax yar oo qaatay. waayo waxaan rabaa makiinada BT4 ka inaan ku sameeyaan rabaa. hadda inta ka adkeeyo ma ii soo tufayso hadhow. جدا 3 ربع كهرب 2 كوب iyo rubac bur oo qaatay intaas. marka ugu horeyso kugu dhegdhegaa ilaa maaragtay gacanta la galno qoyaankii madaaya sooma laakiin ka bacdi uu ka fuqayaa insha Allah. asxaabteyda qaaliga waa kaas bahashaasaan ku sameysanahay. bahashaan ku sameysanahay naqshad aragtaa gashanaysaa. waxay wadataa intaas oo birood ay wadataa. marka naqshad aragtaa ka dhiganaysaa. maantana cajiinkii waxba kuma soo darin intii maaragtay maasha Allah ku noqday. waa kaas cajiinkii saliidda asagaa soo tufaaya. birtana wax saliida soo ma aana marinin. meeshaana wax saliida ma aana marinin. markaas la socod wanaagsan maasha Allah wuxuu ku soo baxaan ku dhahay. cajiinka markuusan ku dhibaynin maaragtay waa dareemaysaa in busudkaaga natiijada aad ka rabta aad ka helaysid insha Allah. qoyaanka markaa u badiso baashaan looma isticmaali karo. qoyaanka waxaan ka wadaa yani marka caanaha loo badiyo baashaan looma isticmaali karo. waa cajiinka uu jiidjiidma. cajiinka inuu jiidjiidmana lama rabo. cajiinka inuu iskiisu go-aan rabo. aariya ku jirto marka ugu horeysa. adiga qiyaasa kara. hadaarto waa weynaysane hadaartan waa yaraysane mujidino. yaryarka qiyaastaasay ku qurux badan tahay. yariliiska xidig ay noqonaysaa. marka insha Allah asxaabteyda kusoo dhawaada. saa rabtaa u sameysanaysaa. ما شاء الله صحن كاس فورنا soo gashanayna saxan kale tarbayna sameysano intuu ku noqona 2 saxan 3 saxan nasiibkaaga. marka insha Allah waa saa laba nashqadada hadda inta ka dhigay mid xidigtaay midka kaleeto insha Allah markay bislaadaan aan tusinaya. doonasi bislaanayna mid kala saxan kala saaranayna insha Allah isla socodana.
أصحابي سحن كلا تنسوق قاتي جين كمان كسو برتا سو عبيسنا نقشة كبدلني ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeyso way ku dhibaysaa haddii aariyo ku jirto marka dhib male insha allah samray u baahan tahay جديد أنا سليد مرنو بسود كي صورة عيا أنا سليد مرنو بسود كي صورة عيا أصحابي هذا سليد مري لها كور درت سليد واي بسود كسليد اللي وقصي وصوت طفاء marka saliidda xoogaa badan ay soo turto wuu kusoo raacaa waa dhammaaday naqshadaan inta soo noqday marka asxaabteeda insha allah intaa ka badan maaragtay videogan u dheeraanay marka uu bislaado ayaan tusinaa insha allah kii kale aan soo geliyay waa kaasaa qaybta kora hadda kora wax yar u soo qaaday waayo ma rabo inuu iga bislaado harjeenaya ujeedin maaragtay hoosayd ugu geliyay wax yar kor soo qaaday ujeedin ma sha Allah tabarakallah kora wax yar ka gidbina marka insha Allah asxaabteeda isku soo noqonayna marka asxaabay saxankii saddexaad intaas ka dhiman ujeedino intaas ka dhiman ma sha Allah saddex saxan ay ku noqonaysaa nus kiilada oo maaragtay busudka ah insha Allah ilaahay maaragtay doo alfa caafimaad ugu daro wala qaaliga waxaan rajeynaynaa ka faa'iideen marka aan soo bixiyana waa kana ujeedaa ku dhagaayo saxanka ku dhagaayo kasa hada inta ina ka gaduudiso jeceshahay hadii maaragtay aad qafiifkaas ku rabto adiga sidii aad jeceshahay waa kana saan noo noqday markii aan ka soo bixiyay harjeena maaragtay na ujeedin saasina u burbura rabaa busudka
inuu saa u burburana waxaa keenaya waxaa waaye maxaa la dhahaa ukunta maaragtay inaadan ka baqiilin. haddii hal xabo ukun aan ku qasi lahay saa uma burburi lahayn. waa ujeedin maasha allah. sokortiisana aaday u qiyaasan tahay, macaan zaa'idana ma ahan, macaan oo maaragtay meel dheerna ma ahan. maasha allah buskud rasmi kusoo baxay. waxaan jeclaa walaalahay inaan ka wada faa'iideen. allahna wada barakeeyo. ramadaan kariim ayaan idin leenahay. ramadaankii aan ugu soo foodhaya maasha allah. waxaan jeclaysta walaalahay waxyaabaha ciidda loo baahan yahay oo kaleeto, ama inta la sooman yahay ilmaha in loo samaysto loo baahan yahay inaa maaragtay idinka hal qabtiro insha allah. في أمان الله. سارك دنبا أو حيسة لولا له. رمضان كريم.